wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe ayaa booqasho indha-indhayn ah oo uu ku ogaanayo sida ay u nool yihiin iyo isbeddelka ay sameeyeen isu soo dhiibayaasha kooxda khawaarijta ah ee Al-Shabaab ku tegay xarunta dhaqan celinta isu soo dhiibayaasha DRB waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay ugana warbixiyay howlaha ka socda agaasimaha barnaamijka dhaqan celinta Galmudug Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo sharaxaad dhammaystiran ka siiyay howlaha xaruntani qabato iyo adeegyada baaxadda leh ee ay ka helaan dhalinyarada dooratay in ay dib ula midoobaan dadkooda oo halkan ka hela waxbarasho diini ah mid maadi iyo xirfada ay ku shaqaystaan intaba si looga saaro fikirka qaldan ee ay kooxda argagixisada ah ku shubtay maskaxdooda loogana shaqeeyo inay dib ula midoobaan bulshadooda iyagoo leh xirfado shaqo oo kala duwan meeshan wasiir sadaraha ku aragta waa dhalinyaro badan soo gaartay xiliyada ugu dambeeyay ay ugu badnaayeen soo hadirtan operation ku bilowday waxa loo sameeyay waxyaabo kala duwan dayaha lahayd soo dhaweyn waxbarasho diini iyo maadi intaba iyo in la baro xirfado ay ku shaqaystaan alxamdulillah rabbil caalamiin lambar badan hadda yimaaday waliba xiliyada ugu dambeeyay walina way soo socdaan oo hadda way imaanayaan sida gobolada dhanba shaqadu way socotaa waan rajeynaynaa hadii la yiraahdo in maaragtay wax badan aan ku sii darno oo ilaa iyo aan ka soo wada reebayno dhalinyarada mabda'a qaldan ee loo akhriyay barnaamijka beenta ah oo diinta ah dadka shabaab ku qaldayaan waxyaabo aan ka barno waxa kamid ah meesha markii yimaadeen dhalinyarada soo goosatay oo shabaab 3 sano 4 sano la joogtay in ay jiraan qaarkood badan oo salaad xataa aan aqoon hadda salaadii la barayo waxa ugu badan ee shabaabka ay dadka ay maaragtay ku risan waxa way erayaro carabi ah waliga wilaayada iyo heesaha carabta iyo waxyaabahaas korka ka xigtisan yihiin salaadiina ma yaqaanaan waa mushkiladeeda laftirkeeda aad u weyn diinna way sheeganayaan oo dadka Soomaaliyeed oo ogyihiin inaysan wax diina shaqo ku lahayn wasiirka amniga gudaha dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe oo u kuurgalay sida ay u socdaan adeegyada ay xaruntani u hayso dhalinyarada ay qaldeen kooxda khawaarijta ee Al-Shabaab ayaa baaq u diray kuwa wali ku jira safafka khawaarijta ee heli kara fursadan ay ka faa'iideysteen kuwii hore uga soo baxay ee ku jira xarumaha dhaqan celinta arrintan ah dadkan ka soo laabanaya nimankan shabaabka ah waa arrin muhiim ah oo bulshada lagu badbaadinayo maadaama ay muhiim tahay waxa laga maarmaana inaad dardargelisaan waxa laga maarmaana in sidii loogu talagalay aad maaragtay u qabataan sababtoo ah waqti marda waxa bilaaban doona hadii alla idmo howlgaladii loogu talagalay in nimankaas lagu xoreeyo oo looga soo saaro dhibaatada ay ku jiraan ummadana looga qaado dhibka ay ku hayaan waxa kaliya waxyaalaha kaliya ee lagu maaragtay badbaadin karna waxa kamid ah in loogu yeero wanaag in loogu yeero wanaaga waa laga maarmaan sababtoo ah qofka bini aadanka ah waxa laga yaabaa in meesha dhib ku haysto waxa laga yaabaa in meesha qasab lagu geeyay waxa laga yaabaa in aqoon darro ay geysay marka waxa soo dhan qofka hadiisa uusan ogeyn يعني wanaaga iyo muxuu ahaa waxa jira haduu ka warqabinin waxay noqonaysaa in uu meesha si jaahilnimo uu isaga dhaga xirnaado si jaahilnimo uu isaga muxuu ahaa jiro sida hadda ka dhawaajisay oo ahay dadka qaar kood inay salaadiiba garanaynin salaaduna ay tahay udub dhaxadka diinta islaamka hadii marka diin sheeganayo oo soo dhaxadka diinta islaamka is aqoonin wuxuu ku sifoomayaa أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون marka qofkii de umada ku dilahay ama ku muxuha dhibaateynahay in uu wanaaga iyo khayrka ka shaqeynayo dawlad islaamiga uu dhalinayo asagana uu ka qadsan yahay waa dhibaato hor Allah waxaan leeyahay dhalinyarta meelahaas joogta ee halkaas ku jirta kulli ayagu in ay dhageystaan ama ay maqlaan aad bay u adag tahay laakiin waxa maqli kara dadka ehelkooda ah dadka asxaabta ah dadka muxuu qaraabada la ah dhalinyartaas in la hadlo qof buu ku xiran yahay marka waxa la rabaa in aad qofka yani aad ka shaqeysaan